السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومختار عنا شو دمانتي إذا كسرت سلامية أوسلو نوروي ميل كستو عد ودنك كجوكتان يدلك دبدي سبا وعن إذا سلامي كدب مركي أي بربورتي دولتي دحاء صوماليا وحاودنك كبلا وضيقي دي سعود سياسات كاسو أهميته سووا وين أي كمي دهايين دي بهشيسين ودنك لقبلاو dib u dhismihii ama dib u dhisidii hay-adihii dawliga ahaa soo celintii haybadii iyo sharaftii qarannimada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed isu soo dhaweynta ummadda Soomaaliyeed la isu soo dhaweynayo iyo samaynta dastuur heshiis lagu yahay oo sal u noqda dawlad Soomaaliyeed oo ay ummadda Soomaaliyeed raalli ka tahay kulligoodna istabataay karaan nasiib wanaaga dawladihii ku meel gaarka ahaa ee dawladii Sheekh Shariif ugu dambeysay waxyaabo badan oo runtii ay qabteen oo aan dadka badankoodu aan laga yaabo inaan xasuusan baa jira ciidamadii Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay dib loo soo dhisay maleeshiyadii qabiilooyinka ku dhisnayd baa ciidan Soomaaliyeed loo bixiyay xoogii dalka Soomaaliyeed ayaa dib loo abuuray ciidankii booliiska ayaa dib loo abuuray nabad sugidii ayaa dib loo abuuray waxaana waxa ka muuqda muhiimsanayd in xamar la isugu yimaado caasimadii dalka oo la yiraahdo aan bal wada hadal halkii markii hore qori iyo qabiil loo wada hadlayay waxa kaloo ay dawladaha kala duwanaa ee ku meel gaarka ay soo qabteen kamid ahaa in fikirkii siyaasadeed ee lagu heshiiyay ahaa in wadanka laga dhigo wadan dimuqraadiya oo ku salaysan ama dawladnimada laga dhisay ay ku salaysan tahay waxa la yiraahdo federalismka ama federationka in la abuuro dawladii u dambeysay matalan Xasan Sheekh waxyaabaha ay runtii qabatay waxa kamid ahaa in maaragtay la dhiso dawlad goboleedyadii oo 5 dawlad goboleed ay meeshii ka soo baxaan waa Galmudug waa Hirshabeelle waa maxaa la yiri Koonfur Galbeed waa maxaa la yiraahdaa Jubbaland iyo sidoo kale nasiib darro waxaad moodaa markii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu xukunka qabtay in wadankii iyo wax kasta oo la soo kabayayba ay runtii dhibaato soo gaadhay ta ugu darana waxa weeyaan in sharaftii iyo hamigii siyaasadeed ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen ay runtii meeshii ka baxeen waxa wadankii ka abuurmay qas iyo buuq siyaasadeed waxa la abuuray colaad taagan oo siyaasadeed oo maalin walba dagaal iyo buuq wadankii ka socdo waxa la bilaabay cunaqabatayn dadkii lagu soo rogay oo aan loo ogolayn qof inuu hadlo qof inuu juuq yiraahdo qof inuu qof kale la kulmo qof in gurigiisa lagu booqdo waxa wadankii soo galay jahawareer siyaasadeed oo aan la arag kaasoo kale xataa dawladii Siyaad Barre markii kacaan ku dhashay ay markii hore digdiglayaasha ahaayeen ayaa ugu dambeysay in waxan oo kale wadankii ka dhaco waxa wadankii ka bilowday amar ku taagleen xadaafa oo la leeyahay war waxaanu nidhaa yeel ama qoriba afka laga gelinayo dimuqraadiyadii iyo wada hadalkii iyo dib u heshiisiintii iyo hamigii siyaasadeed ee geedi socodku salka u ahaa oo dhan meeshii ayuu ka baxay waxa la bilowday burburinta hay'adihii dawliga ahaa oo ugu muhiimsan tahay baarlamaanku ha iska jilicsanaado ha iska taag daraado laakiin waa hay'adda qura ee matasha ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto wuxuu ku salaysan yahay fikir aan dadka badani raalli ka ahayn oo 4.5 laakiin ummadda Soomaaliyeed ay hadda runtii intooda badani ku qanacsan tahay waxa la bilaabay gudoomiyihii baarlamaanka Maxamed Usmaan Juwaari in meeshii laga tuuro ujeedaduna waxay ahayd waxa lagu yiri waxaanu doonanaa yeel isna wuxuu war waxaan wax soconaya ma aha waa in waxa la aynu yeelana sharciga la qabadsiiyaa dastuurka la ogolaysiiyaa Soomaalina ay ku heshiisaan waxaasi ma soconayaan buu yiri Farmaajo qoriba afka laga geliyay lacag baa la ururiyay baarlamaankii baa intii kharibnayd la laalushay Maxamed Usmaan Juwaari ayaa dibadda la dhigay waxay yiraahdeen waxaanu dooranaynaa ninkaanu rabno Maxamed Mursal ayaa la keenay Maxamed Mursal markii isagoo oo maqan gudidii maaliyaddu ay ka hadashay dood ka galeen sida dhaqaalaha wadanka loogu takrifalayo isagoo wadankii ka maqan gudidii la kala diray markuu soo noqday wuxuu yiri waxaan wax soconaya ma aha gudida dastuur bay ku dhisan tahay xeer hoosaadka baarlamaanka ku dhisan tahay bal arrintan aan ka heshiino
dabeedna waa laga diiday isagii ayaa nalkii laga damiyey laydhkii laga xidhay securitigii laga qaatay xildhibaanadii loo diiday inay soo booqdaan isagoo qaxoontiya oo cararaya ayuu ka qaxay madaxtooyadii wuxuu tegay hotel waana nasiib daro runtii waxaad moodaa in haykalkii siyaasadeed iyo wadanninimadii iyo sharaftii dowladnimo la burburinayo waxaasoo dhan kasii daran dowlad goboleedyadii la abuuray ee ha iska taag daraadaan ha iska jilicsanaadaan dhibaata ha haysato laakiin sal u noqon lahaa dib u soo dhisidda dowlad soomaaliyeed oo loo dhan yahay dimuqraatisationka waddanka ka socdaana meelihii uu ka bilaabman lahaa ay ahaayeen ayaa waxaa inta lala dagaalamay baa layidhi waa la burburinaya waxaa lagu bilaabay dagaal maxaa layidhi hirshabeelle waxaa la tuuray cosoble nin kalaa la keenay dowladdaaba layidhi ninkan iyadaa taageersan hase yeeshee ninkiina waa lagu kacay dowlad goboleedii markii ay u dul qaadan waayeen dhibaatada lagu hayo cagajuglaynta lagu hayo hantidii qaranka ee dibadda laga keenay tii cashuurtii waddanka laga qaaday in wax laga siiya loo diiday wax walba xamar musuq maasuq ay noqotay dowlad goboleedyadii waxay go-aan ku gaadheen inay maaragtay yidhaahdaan annagu waxaanu ka goosannay dowladdii dhexe wax xidhiidha oonu la leenahay ma jirto wax alla wixii aanu heshiis la galayna waa ka baxnay taasina waxay noqotay waxaan hore loo arag taariikhda soomaaliyeed soo maray ilaa dowladdii siyaad barre wax taasoo kale ma dhicin dowladdii siyaad barrena waxay ku burburtay goboladiibaa waxay dhahaan dadkii deganaa ayaa dowladdii xamar joogtay ee siyaad barre madaxda u ahaa diiday waa tii xamar habqan lagu soo galay habqana looga cararay la isku dilay nasiib darro tii ayaa maanta socota si kasta ha noqotee waxaad moodaa also inay dowladdan meesha jirtay maxamed farmaajo uu xukumo ay go-aan ku gaadhay inay burburiso hay-adihii amniga waxaa jiray hay-adda booliiska oo runtii ah hay-adda qura amniga ee ka badbaaday dagaalkii sokeeye booliisku ha iska taag daraadaan ha iska leecleecaan laakiin habeen iyo dharaar waxay usoo taagnaayeen ilaalinta sharciga iyo ilaalinta amniga dadweynaha booliiskii sharaftii baa laga qaaday booliiskii tababarnaayo loo carbiyey sida sharciga loo ilaaliyo sida muwaadinka loo sharfo sida wax kasta ay qabanayaan loo qabadsiiyo ama loo eego inuu sharcigu waafaqsan yahay waxaa lagu soo daray maleeshiyo beeleed waxaa lagu soo daray qoladii xasilinta loo bixiyey argagixisada iyo qaar ka soo galaya waxaa la burburiyey nabad sugidii oo loo dhiibay nin al-shabaaba waxaa la burburiyey militarigii 3 ayaa la magacaabay taliyo militariga intii uu farmaajo meesha joogo 2 sano weli la gaadhin marka meeshii waxaad moodaaba in waddankii loo heshiiyey oo qoladan khiyaano qaran u heshiisay inay ku burburiyaan xoog iyo laaluush ta ugu darana meesha jirta waxa weeyaan waxaa caado laga dhigtay oo sharci laga dhigtay laaluush waxaa sharci laga dhigtay in qofka la yidhaha war lacag qaado waxaan aan doonana yeel ama waddanka iskaga taga maxabad baanu kugu dhufanayna matalan khayraadkii dabiiciga ee waddanka maalin dhaweyd waxaa dhacday oo wiig laga joogo hadda sidaan ka warhayo in la yidhi wax alla wixii khayraad waddanka ku jiray kalluunku ugu horeeyo waxaa lagu wareejinayaa dowladda shiinaha dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed wax loogu bedelaya weli laynooma sheegin shirkado tiradoodu fara badantoo meel ay ka diiwaan gasheen aan la ogeyn horena loo ogeyn horena loo maqal cidda aan la ogeyn ayaa la yidhi kuwaasaa wax ku leh oo ka shaqaynaya dadkii soomaaliyeed xildhibaanadii siyaasiyiintii dadkii xisbiyada hogaaminayay qof walba yaab iyo amankaag iyo wareer ayuu madaxa iyo labada dhagood la haya marka waxa weeyaan war waddanka waxaan ka socdaa maxay yihiin xasan cali khayre saynu ka warhayno wuxuu u shaqayn jiray niman shisheeya shirkad la yidhaha Somo Oil and Gas oo meel ay ka diiwaan gashantay aan la ogeyn iyadoon la ogeyn muddo 3 cisho ka hor mise 3 usbuuc waxay tahay ma hubo markii la sameeyey kadib ayaa kontraatka Soomaalidu ay siisay marka waxa weeyaan ujeedadiisuna waxay ahayd inuu khayraadka dabiiciga gaar ahaan oil and gas ama petrolka iyo gaasta inuu ku wareejiyo shirkadda dhulkii Soomaaliyeed ee Kenya inagu qabsatay ee badeena 300 oo kun oo square kilometer ah weli dowladda Soomaaliyeed dacwadii laga rabay waxba kamay qaban looyaradii dacwadda waday ee dowladdii Xasan Sheekh ay shaqada siisay ama ay u dirtay inay oo ay kiiska Soomaaliyeed ay geeyaan maxkamadda mushaharkii waa laga gooyay
waxay ahayd bishii June sanadkan ama bishii 6 sanadkan inay dowladda Soomaaliyeed jawaab ka bixiso oo ay maxkamadda caalamiga geyso fikirkooda siyaasadeed ee ku saabsan dhulkan ay Kenya inagu qabsatay badda ku yaal wali arintaa kamay hadlin marka waxaad moodaa meeshii in qaran dumis la wado taa waxa ka sii daran ninkan cusub ee Ethiopia qabsaday la yiraahdo Abiy Ahmed ayaa intuu dig soo yiri uu dac soo gashaday isagoo aan eegayn oo dan kala hayn sharafta iyo hay'adda Soomaalida ama dawladda Soomaaliyeed ayuu diyaarad intuu soo fuulay ayuu yiri waxaan rabaa 4 dekedood Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia midaynaya dhulka la isu furaya 80 milyan ee Ethiopiaanka Soomaaliya dukaamay ka furan karaan oo ay ka shaqaysan karaan farmaajana wuxuu ugu jawaabay Abiy Ahmedow ku soo dhawow gurigaaga labaad oo Muqdisho nimankii ummadda Soomaaliyeed ee hogaaminaya gobolada dawlad goboleedyada hogaaminayna xabad ayuu nin walba meeshooda ugu diray marka meeshii wax ka khaldan yihiin anigu ma fahmin ninkan sidoo wuxuu wadaa ninkan qaran dumista intan leeg xagu ka wada kadib farmaajo wuxuu tagay Gondar Eritrea tagay wuxuu yiri waxaan ka shaqaynaynaa in saddexda wadan la mideeyo war sidee Soomaaliya xorriyadeeda iyo madax banaanideeda mar qura iyadoon laga heshiin oo ummadda Soomaaliyeed ka hadlin loogu wareejin karaa dad kale wuxuu soo galay heshiisyo ciida ka badan oo aan la ogeyn maxay ku saabsan yihiin meel ay ka hadlayaan shir kasta uu tagana keligii baa taga cid ma wato wasaaradii heshiisku soo galay ku shaqo lahayd lama tashado wasiirka lama tashado isaga iyo dad shisheeya iyo gaala iyo Xasan Khayrlaawo ayuunba wax isku shushubta marka dawladnimadiiba ma saddex nin bay noqotay waa Fahad Yaasiin oo ku xidhan Qatar waa Khayrlaawo ama Xasan Cali Khayro ku xidhan Somo Oil waa ninkan maxaa la yiraahdaa farmaajo Ethiopia walaal ka dhigtay iyo Eritrea Soomaaliya man saddexdaas ayaa hogaaminaya si kasta ha noqotee Soomaalidu waxay tiraahdaa Quraan alifka ka qalooday al-Baqara kama toosan waxaan taa uga jeedaa siyaasadda Soomaaliyeed maanta jahwareertay halkay ka khaldantay waxa weeyaan in shaki ku jirin waa maalintii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo loo haystay nin wadaniya oo Soomaaliyeed oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa wuxuu taraya la doortay nasiib darra ninkii wuxuu noqday maartii la gartay wuxuu noqday nin qariban wuxuu noqday nin iska hurda wuxuu noqday nin iska jiifa wuxuu noqday niman aqoon siyaasadeed aan lahayn niman aragti siyaasadeed lahayn niman dadkiisa u turayn niman dalkiisa u turayn niman umadiisa dan ka lahayn maalin kasta xamar dad baa ku dhinta maalin kasta dad baa la qarxiyaa maalin kasta dad bay dhibaato haysataa saddex cashuurood bay dawladdu ka qaadeen ayaa dadka ganacsatada xamar joogta laga qaadaa mid ay al-shabaab qaadato mid ay daacishada ku soo rogtay mid ay dawladdu xaddaaf ku soo rogtay waxa soo cashuurana ganacsatada ayaa la saaray nasiib darro ganacsatadu waxay iibinayaan marka cashuurta dawladdu ku kordhiso sixirka ay bashcurada ku iibinayaan bay shilinka lagu dawladdu ka qaaday ku darayaan sidaa darteed dadka cashuurta ama dhibtu gaaraysa cashuurtan bixinaya waa dadka danyarta xamar jooga waa dadka maalin walba la qarxinayo waa dadka aan iskuul loo dhisin waa dadka wadooyinkii laga xiray maalin kasta dib baa ka socota xamar madaxweynuhu weligii kama hadlo haddaynu eegnay marka waxaan koonfur galbeed ka dhacay Shariif Xasan oo madaxweyne koonfur galbeed ka baa lagu yiri waxaan rabnaa inaad iscasisho hadaa diido baarlamaankii baa laga soo qaatay lacag baa la siiyay hubiye lacag baa la siiyay hotel baa lagu xiray Shariif Xasan wuxuu ku qasbay inuu meeshii iskaga tago nin kala diyaarad la soo saaray gaari gaashaaman diyaarad loo soo saaray jawaana lacag looga soo buuxiyay meeshii baa la geeyay taliyihii booliiska ee magaalada Baydhabo baa la yiri ilaali askartii baa la yiri ilaali shacabku markay diideen ay wixii diideen meeshii ka socday way ka gadoodeen Mukhtaar Roobo waa la shirqoolay ciidamo Ethiopian ayaa meeshii xoog soo galay oo sheeganaya inay African Union ka mid yihiin African Union waxa nimankaasi anaga nagama mid aha shughul kuma lihin soo qabashada Mukhtaar Roobo shughul kuma lihin xasuuqan ka socda Baydhabo waxa soo dhanna waxa ay u dhacayaan waxa weeye farmaajo ayaa isla xukunkaaga ku sii dheere cadow shisheeye oo ummadda Soomaaliyeed xasuuqa taa hore inuu soo aragnay socon mayso arrintu waxay tahay ninbaa wuxuu yiri daabcad ninkii kugu dhuftay ee daabka ku celiyay iyo kii duleeshay ku yiri wax isma doorshaan waxaan uga jeedaa ummadan Soomaaliyeed la dhibayo ee maalin waxa soo dhibi haysato nimanka siyaasiyiinta sheeganaya ka aamusan ama way taageersan waxaan dadka lagu hayo dan iyo muraad kamale ama waa niman fulayaaloon xiniye siyaasadeed lahayn
sidaa darteed waxaan u soo jeedin lahaa in ummadda Soomaaliyeed ay ka dhiidhido dhibta lagu hayo koonfur galbeed, dhibta lagu hayo muqdisho, dhibta lagu hayo galmudug. ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda, sharafteeda, muqaddasnimada arrintaas ay leedahay la ilaaliyo. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.